soo dhaweynta aniga wafdiga ila socotay sida heerka sare ugu soo dhaweysay Muqdisho dhamaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo laabano Muqdisho annagoo soo dhamayna sida ay mas'uuliyiinta hadashaba u sheegeen hawsha aheeday doorashadii aqalka sare si nabdoon ay noogu soo dhamaatay ilaahay ayaa mahadaas iska leh waa ka mahad celinayaa wanaagga nagula soo dhaweeyay iyo sida farxadda leh ee noola soo dhaweeyay aniga wafdiga la socdo runtii si aad u wanaagsan ayaa nagula soo dhaweeyay farxad iyo wanaag iyo bulshada waxa qaybahooda kala duwanay mas'uuliyiinta ismarxabayn iyo maaragtay weyniin aad u ballaaran ka jirtay waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin runtii arrintaad sheegteen oo doorashooyinka mas'uuliyadna saaran ay aheeday waajib ay aheedo in ummadda loo cadaalad falo dadka waxa deeqan cadaalada ka jirto ma hay gacantaada waxaad ka siisay lama kala gaartid laakiin wax la deeqsi karo cadaalada ka jirto waana mas'uuliyad waana waajibna saaran in loo cadaalad falo ummadda hadii la raalli ka noqdo waxaana ballan qaadaynaa hadii la raalli ka noqdo golaha shacabka doorashadoodana insha Allah hadii la raalli ka noqdo in si cadaalada oo qof waliba ay ku qancayso daahfuran ay doorashada idana u dhici doonto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay si nabadgelyo ay noogu soo dhamaato iduna sida aqalka sare oo wanaag oo noogu soo dhamaada ayaan alla ka baryaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin hawlo shaqaan u nimiday guud ahaan waa isu arki doonaa gaar ahaan waa isu arki doonaa insha Allah hadii la raalli ka noqdo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aadka u qiimo badan oo noogu la sameeyay Muqdisho waxaan leeyahay waa mahadsantihiin cid kasta gacan ka geysatana waa u mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin sharar gooni gooniyana waa yeela doonaa aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh